Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan u wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dalka Iran iyo dagaalka ka socda halka. Qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan ku qaadaa dhigi doonaa haddii la dilay hogaamiyihii dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei dalka Iran siduu noqon doonaa, halkaas miyuu kusoo gabagaboobi doonaa nidaamkii Iran, sidee isbedel ugu dhici doonaa dalka Iran. madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa waxa uu yiri dilka Ayatollah Ali Khamenei waa ku dhawaaqista dagaal ka dhan ah muslimiinta Shiicada ah, argoosigana waa xuquuq sharci ah ayuu leeyahay. Markab shidaal ayaa ku gubanaya gacanka Cumaan, afar ka mid ah 20 shaqaalaha oo saarnaa ayaa ku dhaawacmay kadib markii la sheegay inay ku qaraxday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee Iran sida ay warisay Reuters. Ayatollah Arabi ayaa si ku meel gaar ah loogu magacaabay in uu noqdo bedelka Ayatollah Ali Khamenei, waxa uu hogaamin doonaa golaha sare ee ku meel gaarka ee maamulka Iran, kaas oo ka koobnaan doona madaxweyne iyo madaxa garsoorka ilaa inta hogaamiye rasmi ah looga magacaabayo. Imaaraadka Carabta ayaa laga yaabaa in uu qaato mowqif dagaal oo ka dhan ah Iran haddii ay Iran sii wado weerarada gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhacaya gudaha Imaaraadka, sida ay u sheegtay CNN-ta wasiiru dowlaha wasaaradda iskaashiga caalamiga Reem Al-Hashimi. Rabshado ay ka dhigayaan dadka careysan dilka hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa ka socda dalka Ciraaq, iyadoo meelaha qaar ay dadku weerarayaan ay ku jirto safaaradda Mareykanka iyo goobaha lala xiriirinayo Mareykanka, sida uu wariyay RT. Laba diyaaradood oo aan nooca duuliyaha lahayn ah ayaa maanta ku qarxay dekedda ganacsiga ee Al-Duqm, iyadoo la sheegay hal qof oo shaqaale ajnabi ah in uu ku dhaawacmay, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Cumaan. Xoghayaha Golaha Difaaca ee Iran Cali Shamkhani, oo ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu awoodda ku dhex lahaa nidaamka Iran, iyo taliyihii guud ciidamada ilaalada kacaanka Iran Generaal Mohammad Baghpour ayaa labaduba la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen weerarkii Mareykanka iyo Israel ay ka fuliyeen gudaha Iran, sida laga soo xigtay Al Jazeera. Axmedow, haddaan fiirino xaaladda ay ku dambeyn doonto Iran iyo Bariga Dhexe, waxaa dhacay isbedello waaweyn oo aan si fudud loo filinayn amba si dhib yar inay ku dhacaan loo malaynayn ayaa dhacay. Sidaa daraaddeed, xaaladda Bariga Dhexe waa qasan tahay, sida ay noqon doontana waan isla eegi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Axmedow, sidoo kale haddaan eegno maanta wararkii ugu dambeeyay ee Iran, Ayatollah Ali Reza Arafi ayaa si ku meel gaar ah loogu magacaabay inuu noqdo bedelka Ali Khamenei, waxa uu hogaamin doonaa golaha sare ee ku meel gaarka ah ee maamulka Iran, kaas oo ka kooban madaxweynaha iyo madaxda garsoorka. Golahani waxa uu hogaamin doonaa Iran ilaa laga soo magacaabayo hogaamiye sare oo si rasmi ah u bedela Ali Khamenei, sida ay warisay wakaaladda wararka Iran ee Tasnim. Sida laga soo xigtay ilo ku dhow maamulka ama golaha kacdoonka ee Iran, waxa ay sheegayaan in 40 maalmood oo baroordiiqa loo dhigi doono hogaamiyihii sare ee Ayatollah Ali Khamenei oo shalay lagu dilay weerar ka dhacay magaalada